السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معلمين شرفت له waxaan insha Allah soo gudbin doonaa timetable-kii soo macallin iga soo codsaday baa jiray marka hadda waxaan sameeyaa waxay tahay anaha afar class baa samaysan salahan waa tusaale yar rabaa inaan bixiyo wayaan waa class 1 waxa ku xiga dira class 2 class 3 iyo class 4 so class walba iyo waxa way table-kiis waaye marka tusaale waxaan soo qaadanaa waxay tahay afar class tusaale class 1 ilaa class 4 afarta class marka waxaan u assign gareynay inay qaadanayaan toddoba maado inay qaadanayaan Soomaali to xisaab inay qaadanayaan Soomaali marka wuxuu baxayaa shan macnaha xiiso ay isbuuc ay qaadanayaan Soomaali xisaabtana shan xiiso ay qaadanayaan waxaa soo haray inta kale soo harto waxay qaadanayaan saddex bay qaadanayaan waaya sidaas la mid ah marka xiisadahaas ku darkooda ay qaadanayaan isbuuci waxaa laga rabaa 25 xiiso ayaa laga rabaa inay qaataan shan macallin baa markaa shaqeynaysa shanta macallin oo shaqeynaysa laba macallin oo kamid ah macnaha ka soo qaad macallin Axmed iyo macallin Cabdullaahi oo kale macallin Axmed oo kale wuxuu qaadanayaa Carabi tarbiyo macallin Yaasiin waxaan qaadanayaa English iyo cilmi buu qaadanayaa marka labada macallin laba maad ay dhigahayaan sidaas aan assign garan doonaa insha Allah hadii Ilaahay raaco okay so inta hadda ina fahanteen baan rajeynayaa now waxaan bilaabi doonaa xiisadaheena ayaan toos u geli doonaa insha Allah waxaan u baahsan ka sari doonaa insha Allah hadii Ilaahay ama save aan iska dhaafo okay waxaan soo furan doonaa application-ka waan soo furan doonaa now so waxaan leeyahay waxaan la abuuran doonaa waxay tahay dilay ku soo galiyahay iskuulka magaciisa aan la bixi doonaa so haan iskuulka waxaan u bixinayaa ka soo qaad ablaal 2 baan leeyahay halkan waa sanad dugsiyeedkii way marka kana beerayo ablaal sanad dugsiyeedkii halka academic year halkan buu soo galayaa waaya halkan marka waxaan soo qaadanayaa period days so halkan waxay nagu talay hadda fiirisaan macnaha intaan shaqeynayno maalmaha shaqeynayno waxay ahaayeen 5 maalin bay ahaayeen maalmaha shaqeynayno halkan marka period days ku qoran tahay waa maalmaha shaqeynaysid oo iskuulka u shaqeynayo 5 maalin buu shaqeynayaa marka iskuulka yes tan waxa waa periods of days waaye tan waa periods of days xiisadaha intay xiisadaha ay yihiin so 5 xiiso weeyaan xiisadii waa period of macnaha xiisadaha uu iskuulku qaadanayo waa 5 xiiso weeyaan waaya maalmaha uu shaqeynayo iyaguna waxa weeyaan waa 5 weeyaan okay halkan markay noo joogto halkan waxa ku qoran bell times ayaa ku qoran so waa xiisadaha xilliga dhamaanayaan xilliga bilaabanayaan ilaa xilliga dhamaanayaan waaya xiisada koowaad baan tagi doonaa xiisada koowaad baan tagi doonaa ayada ayaan dooran doonaa insha Allah xiisada koowaad waxay noo bilaabanaysaa 1 saac waxaan leenahay waxay noo bilaabanaysaa 1 saac iyo 30 bay noo bilaabanaysaa xiisada koowaad waxay dhamaanaysaa 2 saac iyo 10 bay dhamaanaysaa okay waxaan tagi doonaa xiisada labaad ayaan tagi doonaa ayadana waxay bilaabanaysaa dilay ku sumuga xiisada koowaad horta halkan waan ka fahantaa markasta xiisada koowaad goobay noo bilaabatay waxay noo bilaabatay 1 saac iyo waxay noo bilaabatay dilay ku sumuga 30 waxay noo dhamaatay 1 saac iyo 10 bay noo bilaabatay so xiisada labaad marka waxay bilaabanaysaa 1 saac 2 saac now sorry afan xiisada dilay ku sumuga xiisada koowaad waxay noo bilaabatay 1 saac iyo 30 waxay noo dhamaatay 2 saac iyo 10 bay noo dhamaatay so xiisada labaad goobay bilaabanaysaa xiisada koowaad markay dhamaatay xiisada labaad bilaabanaysaa so waxay noqonaysaa marka xiisada labaad halka waxay ka noqonaysaa 2 saac iyo 10 bay noqonaysaa 2 saac iyo 10 waxay dhamaanaysaa 2 saac iyo 50 halka waxa fahmaysaa marka xiisadaheenu inay ku socdaan 40 daqiiqo inay xiisadaheenu ku socdaan baa ka fahmaysaa okay iyo 50 waaye okay halka waxaan soo sameeynaa waxay tahay labadii xiiso ugu horeysay ayaan soo sameeynay waxaan tagaynaa xiisada saddexaad baan tagi doonaa insha Allah so iyadu waxay noo bilaabanaysaa waxay tahay xiisad waxay noo bilaabanaysaa waxay tahay 2 saac iyo waxay noo bilaabanaysaa dilaa ku sumagay 50 bay noo bilaabanaysaa waxay noo dhamaanaysaa 3 saac iyo 30 bay noo dhamaanaysaa okay ana la socotaan barajeenay 2 saac iyo 30 ay noo dhamaan doontaa sidaas markii halkan aan joogno oo 3 xiiso aan ku soo qaadanay waxaan u baahanahay ilmihi inaan break time siino so
xiisadan waxay noo dhamaataa waxay tahay haddii la ku kada fiiriso ila fiirisaan waxay noo dhamaatay xiisadan waxay noo bilaabatay waxay ahayd 2 saac iyo 50 min noo bilaabatay waxay noo dhamaatay 3 saac iyo waxay noo dhamaatay 30 min noo dhamaatay marka 4 saac maxaa ka dhiman 4 saac waxa ka dhiman baa waxay noqonaysaa صندوق 4 ساعة ka dhiman tahay 30 ka daqiiqo ilmahan siinana break time kooda iyo macallimiintu intay shaaha cabi lahaayeen ma ka dhigi doonaa insha Allah soo ilmihii waxaan halkaas oo nafis uga helo marka xiisadeena afraad waxay noo bilaabanaysaa 4 saac buura ay noo bilaabi doontaa marka maadaama 30 daqiiqo halkan ka siinay ilmihii 4 saac oo buura way ka dhigi doonaa 4 saac oo buura ma kariya 4 saac iyo marka 40 bixiisadan dhamaane waa xiisadii afraad waa okay soo xiisadii shanaad marka xiisadan waa inaan markaas ogaataa xiisadan markay dhamaato xiisada kale aan bilaabanaya soo xiisadan waxay bilaabanaysaa iyaduna 4 saac okay halkan baa yes xiisadan halkan waxay ka dhamaanaysaa xiisada waxay dhamaanaysaa 4 saac iyo 40 ay dhamaanay yes 4 saac iyo 40 4 saac iyo 40 soo xiisada shanaad marka goomay bilaabanaysaa 4 saac iyo 40 bay bilaabanaysaa 4 saac iyo 40 okay 4 saac iyo 40 bay bilaabanay waxay dhamaanaysaa halka marka la iga dar marka waxay iga dartaa 5 saac ka dhiman 20 daqiiqo ka dhiman 20 kale igu soo dar waxay noqonaysaa 5 saac iyo 20 isku noqonay 5 saac iyo 20 soo 5 saac iyo 20 markii iskuulka uu joogo inuu xaafadooda iska aadayaan waa la fasaxaya marka halka waxaynu samaysan baa waxay tahay ilaahay ku soo gal yahay waqtigii inaan halkaas ku dhameystirnay soo marka waxaan u baahanahay break time inaan meesha soo galino u baahanahay oo jadwalkeena break time laga dhaxarka ayaan u baahanahay halkan markaan joogno waxaan tagnaa halkan baa imaan doonaa halkan waxa ku qoran daa fiirisaan add break baa ku qoran soo ayaan tagi doonaa kayban ku siin doonaa halkan waxa ku qoran doonaa break waxa ku qoran doonaa meeshan halkan br ugu qoran shortigi weeyaan halkan waxaan leeyahay marka xiisaduhu goomay noo bilaabanayeen inay si fiican meeshaas u arkin baa macquula xiisaduhu micnaha xiisadaha aan dhihin break time ka goormaan gelin break time waxaan gelinay xiisada saddexaad markii noo dhamaatay xiisada saddexaad waxay noo dhamaanaysaa 3 saac iyo 30 bay noo dhamaanaysay 4 saac 30 daqiiqo ka dhiman bay ilmuhu waxa way waqtigooda qaadanayaan marka waxaan leenahay before period 4 baa leenahay xiisada afraad ka hor baa leenahay meeshaas halkan waxaan ku qoranaa waxaan noqonaa halkan waxaan ku qornaa marka nasiina meesha ku qori doonaa insha Allah halkan daa fiirsaan waa xilligii xiisada inaha break xiisadihii hore ay dhamaanayeen waay soo xiisada saddexaad xilligii dhamaanaysay way halkan xiisadii afraadna xilligay bilaabanaysa meesha kugu qoran inta marka halka u dhaxaysa waa intii ilmuhu waxa way break time-kiisu qaadanayay way halkan waxaan ku qori doonaa marka nasiino time ama waqtiga nasiino waan ku qori doonaa waqtiga nasiinada ayaa halkaas siin doonaa insha Allah okay waya soo halkan maxaa soo galay marka waayahay halkan waxa noo soo galay waxay noqonaysaa waa waxa jira break time-ka halkan noo soo galay waxaan leenahay okay ma run doonaa inta ka badiga hadda now waxaan bilaabi doonaa si toos u sii bilaabi doonaa halkan haddaa fiirisaan Saturday ka saaranta marka maadaama Saturday ka saaran tahay maalmuhu kaaga bilaabayo Saturday iyo Sunday wuxuu aqoonsanayaa isku fasax inuu yahay maalmaha ku sii xiga kaaga bilaabayaa Saturday Sunday halkaas kaaga bilaabaya soo waa inaan ka dhignaa marka anaga muslim baan haylaan waa inaan ka dhignaa Thursday iyo Friday waa inaan ka dhignaa iskuulkeena Thursday iyo Friday waa fasax Saturday ga bilow waa inaan raacnaa okay waxaan leenahay marka naga sii ma sii oran doonaa okay marka hore aan ku sii soconaa naga sii ma sii leena halkan marka joogno marka halkan saamku kugu soo baxo kala su'aalahan halka hadaa fiiriso meesha fallaarta ku qoran tahay waxa way waa maadooyinkii waa subjectiga waaye subjectiga halkan inaha icon-ku uu saaran yahay sida user-ka kale ama madax dad u maleynaa ayadana waxa weeyaan dila ku soo waa student-giis waxa weeyaan waa glasses waaye glasses weeyaan waxa glasses ardayda ku xaroonayaan halkan dad timaado ayadana waa teachers-ki waaye koofiyadaas waa macalimiintu waa la maamuso waxa weeyaan koofiyada loo geliyay marka waa koofiyada jaamacad macnaha dad graduate ay yihiin ka muuqanaysa dad wax bartay
inay yihiin marka taasna halkaas ka muuqata now waxaan tegaynaa waxay tahay marka waxaan tegaynaa maadooyinkaan tegi doonaa ayadaan ku dhufan doonaa maadooyin markaan saa ugu dhufano tusaale ahaan hal mar baan waxaan rabaa inaan soo koobiyeysto halkan maadooyinkayga ugu qornaa marka kuwan baan hore iska tirayaa ila xasuusnow macallin soomaali 5 buu ii leeyahay xisaabna 5 buu ii leeyahay inta kale maxay yihiin 3 waaye marka waa iska tiri doonaa tiradan waxa weeye xogaa waxa weeye corruption bay u sameynayaan iska tiri doonaa okay marka waan koobiyeysanaya marka one time waan koobiyeysanaya copy baan leeyahay okay minimize baan leeyahay so waxaan joogaa waxay tahay ii dooran maadooyinka ay dooran new baan leeyahay ama waxaan oran karaa import baan oran karaa soo galay marka waxaan oran doonaa import baan noo oran doonaa so maxay noo soo galay maadooyinka dhammaantood noo soo galeen halka marka okay baan iska dhihi doonaa so maxay noo soo galay dhammaan si qurux badan inoogu soo galeen mar one time waan laaban doonaa notebarkeena ma ku laabananaa halkan waxaan kasoo qaadanaa galaasyada inoo yaala so waan soo qaadan doonaa galaasyadii ayagana waan soo koobiyeysan doonaa okay so waxaan imaanaa galaasyada marka waa kuwan ayaga waa inaad marka hore doorataa waxaad samayn kartaa inaad dul tagto new aad tiraahdo oo mid aad usoo gashato ayadana waa samayn kartaa so waxaan leenahay hadda waxa weeye import baan leenahay ayagana horta waa inaad iska hubisaa haddaad soo koobiyeysan tii hore kuu saaraya markas waa inaad iska hubisaa waxaad soo koobiyeysatay waa inaad iska hubisaa si mataqaanaa waxa uu clear u noqdaan okay so hadda waxaan tegaynaa waxay tahay now glass baan tegi doonaa falaar buu kuu saaraya marka meesha tigtaaba falaar buu kuu saaraya waxay ku tusinaysaa meesha kuu dooran buu ku tusaya hadda hadaan tago kale falaarti baa ii saaran kan hadaan tago falaar baa ii saaran kan hadaan tago falaartaas ii saaran falaartaa buu ii saaraya so hadda waxaan joogaa waxay tahay galaasyadii baan hadda joogaa import ma oran doonaa import markaan dhaho halkan baad tegaysaa meesha markaad tagto waxaad dooranaysaa name baad dooranaysaa markaad name dooratid waxaa leedahay import galaasyadii baa halka ka arkaysaa glass 1 glass 2 ilaa glass 4 baa arkaysaa so import baa leedahay marka halkan marka okay baa iska leedahay okay so hadda maxaa kuu dooran macallimiintina waxaa kuu dooran ba waxay tahay galaasyadina way kuu dooran yihiin maadooyinkana way kuu dooran yihiin maxaa naga dhiman macallimiinta waa naga dhiman iyana isku aadino mid walba u asayn garayna naga dhiman haddaan halkan tagno waxay noo dooran maadooyinka way noo dooran halka haddaan nimaano waxay noo dooran ba waxay tahay dilaa kuu soo gal yahay halka haddaan nimaano waxay noo dooran waxay tahay galaasyada noo dooran macallimiinta naga dhiman marka macallimiinta iyaga si aan u fahanno waxa iyaga maadaama kuwa kale soo koobi garaynay kuwaan xabad u soo gelin doonaa waa saa u fahantay sida xabada loogu soo gelinayo so waxaan soo qaadanayaa waxaan tagayaa waxay tahay teacherska aan dul tagayaa haddaa fiiriso teacherska marka meeshoodii empty waayo way miranta haddii macallimiin ku jiri lahaayeen halkan ka soo muuqan lahaa markaan dul tagno sida tan oga soo muuqanayso bisaas kale oga soo muuqan lahaayeen sida tan oga soo muuqanayso bisaas kale oga soo muuqan lahaayeen marka macallimiintu maxay yihiin iyagu waa empty waayo way miran yihiin now waxaan tegaynaa new baan tegi doonaa new markaan tagno tusaale ahaan macallinka koowaad waxa weeyaan macallinka koowaad waxa weeyaan magac iska sheega magac lee ka fakerayaa waxaan ka fakerayaa magacan aan ka fakera waaya so shaafici baan soo qaadanayaa waxaan leeyahay macallinka waxaa leeyahay shaafici cali xamad baan leeyahay so halkan waxaan leeyahay ninkan waxaa lagu noonaysaa brisa lagu noonaysaa waa yar saaxiibkay galaaska la dhigta qalad baa sameeyey tan baa iskale yes Barise okay Barise marka hadhow meesha ka soo muuqanaysa haddii la kuu soo gal yahay jadwalkeena waa Barise waa short name ka waa meesha ka soo muuqan doonta waxaan oran doonaa marka okay waan oran doonaa Barise marka ma adigan siin doonaa marka Barise waxaan siinaynaa waxay tahay tarbiya carabi aan ninka siinaynaa Barise waxaan siin doonaa tarbiya carabi aan siin doonaa marka halkan hadda kula laabatay one time carabi tarbiyo ila xasuusnow Soomaali iyo xisaab shan bay ahaayeen inta kale maadooyinka 3 bay ahaayeen okay so waxaan tegaynaa waxay tahay new lesson baa tegi doonaa new lesson markaan tagno halkan baa tegi doonaa waxaan tegi doonaa tan baa tegi doonaa macallinka soo dooran doonaa maxaa ku jira marka meeshii shaafici kaliya ku jira macallin kale kuma jira meesha haddii macallimiin kale ku jiri lahaayeen halkan ka soo muuqan lahaayeen halkan maxaa inoogu qoran subject baa inoogu qoran maadadan dooranaa ninka odaga maxaan siinaa waan niri tarbiya carabi aan siinaa ninkaas iskuulka tarbiya carabi ka dhiga class by maana marka class marka salahan class 1 oo class ka soo qaadanaya lesson week maadooyinka inta isbuuci baxayeen 3 isbuuci baxayeen okay 3 macnaha xiiso isbuuci ardaydan qaadanayeen
okay oo haddii ilaahay kuu sumogelaya ah maadadan doortay oo tarbiya ah okay so waxaan leenahay marka okay baan leenahay okay markaan niraano hadda maxaa inoo soo galay waxaa inoo soo galaa waxay tahay glass 1 oo aan siinay xiisadihiisii waa inaan kuwa kale markaa mid waa awoodnaa inaan usoo gelino oo mid aan usoo gelin laakiin maxaan samayn karnaa waan copyeynaa waxaan leenahay copy baan leenahay so another class baan oran doonaa waxaan leenahay all glasskii aan soo siinay wuxuu ahaa glass 1 buu ahaa isagoo ka qaadanaa okay baan leenahay maxaa inoo soo galay dhammaan xiisadihii uu qaadanayay glasskan iyo macalinkooda inoo soo wada galaan waxaan u baahan marka sidoo kale macalinkan maadaama aan siinay carabi tarbiyo maxaan u baahanahay so waxaan u baahanahay waxay tahay now macalinkan maadadii kale inaan ugu darno u baahanahay so waxaan leenahay new lesson baan leenahay another time macalinku inoo dooran yahay ujeedaa macalinku inoo dooran yahay maadada kale uu dhigay macalinka maadada weeye waa carabi buu dhigayaa okay classka uu dhigayaa class 1 iyo soo qaba lessonka weeka inta xiisadaha minaha ay qaadanayaan maadadan 3 jeer bay qaadanayaan usbuucii okay so waxaan leenahay okay baan leenahay another type mar kale waxa weeyaan hadii ilaahay ku sumogelaya waa copyeynaa okay markaan copyeyno waxaan copyeynaa waxay tahay waa Arabic oo class 1 aan soo siiyay waaye waxaan leeyahay another class baan leeyahay so all baan leeyahay dhammaan ii wada door glass 1 waa ka qaadaya markasta glasskii hore soo siisay waana ka qaadaa hadii kale waxa duplicate buu ku sameynaya okay so waxaan leenahay okay baan leeyahay macalinka marka maxaa u jeedaa meeshan wuxuu bixinayaa labadii maado uu bixinayay iyo glassyoodii iyo maado kasta oo 3 ah oo isku halkaas ku dhameystiranta waan laamaana marka close ma oran doona marka tarbiya carabi naga baxday kuwa kale saas kale soo gelin doona waxaan tagnaa waxay tahay mar kale macalinka la rabnaa soo gashano salahan waxaan soo gashanaa macalinka dhiga Englishka waxaan isku saaray laba maadaan isku saaranaa English iyo waxaan isku saaray Cilmi waxaan isku saaranaa waxaan joognaa waxay tahay hadii la kus macallimiintii baan joognaa nayo baan leenahay waxaan leenahay ana tan oo kala qaadanaya waxaan leeyahay anoo Yaasina ali shiraan leeyahay so meena sidan waxaan ka dhigan doonaa shir ayaan ka dhigan doonaa okay waxaan leeyahay okay baan leeyahay okay marka maadooyinkan ninkan odaga aan dhigay maadooyinka ahaayeen horta waa inaan soo dartaa macalinka waaba doornaayba halkaan laba macalin baa igu jira Shaafici waa soo maadooyinka soo asayn garanay calaamada marka guud ka bixinaya macalinka macnaha maadada la soo siiyo calaamada hadda macalinkan waa Yaasiin waaye Yaasiin baa la kor dooranaya halkaan baa imaanaya halkaan ninkan maadada dhigaya waa English waxa weeyaan glass 1 baa siin doonaa waxa weeyaan isbuuc intuu bixinayo 3 jeer buu isbuuc bixinaya waa markaas ku dhameystiran tahay okay so waxaan leenahay yes waxaan copyeynayaa marka waa copyeynayaa macalinkan marka all baan leeyahay asagana xogaa buufinaya to kala markii hore soo fahanteen okay so waxaan leeyahay asagana waa assign gareey baan leeyahay afartii xiiso saas ku bixiyay waxaan u baahan marka inaan sii waan maadada English waaye cilmi bushaan ugu daraya ninka odaga cilmi bushaan ugu daraya so cilmi busho atana waxa glass 1 soo qaad okay waxa weeye halkan maxaa yaala waa 3 xiiso si isbuuci ayadana okay da u copy another class dhamaanto iyo wada door glass 1 ka qaad okay ninka odagana waxa weeyaan halkaas ayay xiisadihiisu ku dhameeyeen maxaa ku haray afar maada ka baxday iyo laba macallin baa halkaas waxa dilaa ku soo gol yahay kaaga baxday laba macallin iyo afar maada ka baxday maxaa ku haray 3 macallin iyo 3 maado macalinka soo dhigaya hal maado u dhigaya ayaa ku haray okay so waxaan leeyahay marka waan iska close gareyn doonaa now waxaan aadayaa waxay tahay macallimiintii ma aadaya macallin cusub ma soo qaadanaya macalinkan idinku magac u bixiya waxaan u bixinayaa ka soo qaad waxaan u bixinayaa macalinkan Faarax baan u bixinayaa Faarax Ahmed Maxamed baan leeyahay halkan Faarax iska dhig magaciisa Faarax okay baan leeyahay maadada dhigay ninka odaga waa science baan siin doonaa Faarax wuu noo dooran yahay okay aan siin doonaa science baan siin doonaa ninka odaga okay class 1 baan siinayaa halkan sidoo kale waxaan siinayaa glasskan hal maadaama hal xiiso u dhigayo ilaahay ku soo gal yahay waa isbuuci
okay baa leeyahay. Okay, so waa copy garaynaya asagana sidaas la mid ah. Waxaan leenahay dhammaan tan ka qaad. Waay. Maxaa inoo haray? Laba macallin baa hadda inoo hartay. Inoo door labadii macallin. Markasta uu inoo dooran yahay waa inaad taas ogaataa. Macallinka ku xiga waxaan oran doonaa ka soo qaad Maxamed aan iska oo la baxaynaa. Maxamed Ahmed Nuur baa leenahay. Halkan waxaan leenahay Nuur baan ugu magac darinaa. Awowgiis baan ugu magac darinaa Nuur baan leenahay. Okay, yes. Ninkan odaga waxaan siinaynaa maadooyinka laba maado inoo hartay. Waa inaad la socotaa. Maxamed Ahmed Nuur wuu inoo dooran yahay. maadada inoo hartay waxaa weeye waxaa laba maadooyinka inta waa soo shaqeynay waxaa inoo haraa waxay noqonayaan Soomaali iyo xisaab baa inoo haray. Marka ninka odagaa Soomaali waan siin doonaa. Soomaali marka waa inaad xasuusan tahay haddii Ilaahay kuu soo gol yahay inta isbuuci ay baxaysay 5 jeer bay isbuuci baxaysay Soomaali. So 5 halkan waa inaan irahnaa. Okay. Ii copy garay marka iyadana tan waa ka qaadi doonaa maadaama hore aan usoo dooranay. Waa ninka odagaa asaguna saas inagu daray warkiisa. Waa iska kala gorayn doonaa. Now macallinka ku xigaan bilaabi doonaa. Macallinka ugu dambeeyay. Macallinka waxaa loo baxaynaa Saciid Ali Yaasiin iska dheh. Halkan waxaan leenahay Saciid baan leenahay. Ama xogaa magac oo bahalkee dheere iska iraahdo. Dheere iska iraahdo. Inaas ahaan baa usoo qaadanaya. Okay leh. Lessonkiisii ninkan waa inaan u assign garaysaa marka asagana sidiisa la mid ah. Xisaab u dhigayay. Class 1. asaga marka xisaab marka intee bay noo ahay haddaan xasuustaan hore usoo sheegnay 5 bay noo ahay iyadana minaha isbuucii 5 jeer bay baxaysay xisaabta 5ta maalin waa la qaadanayay. Okay baa leenahay. waa copying doonaa now. waa copying doonaa iyadana so waxaan leenahay all. Okay. halkan maxaa marka inoo haray? So waxaan inta halkaad maxaan soo dhamaynay? Waxaan soo dhamaynay waxay tahay macallin kasta iyo xiisadiisii oo galaasyada ku lahaa inaan halkaas siinay oo dhamaystirnay. halkaasi taas intaas saas inoo tahay. Okay, so haddana maxaan samayn doonaa? Close baan iska dhihi doonaa. Marka hore waxaan usoo sheegnay haddii Ilaahay kuu soo gol yahay hore waxaan usoo sheegnay galaasyada galaas kasta inuu qaato 5 xiiso. Marka waxaan tagi doonaa galaas baan tagi doonaa marka. Galaas baan tagi doonaa. So galaas kasta maxaa u jeedaa? Galaas 1 5 macnaha sorry waxaan 5 xiiso 25 baa ka waday. 25 xiiso inuu galaas kasta qaato. So galaas 1 25 buu qaadanaa. galaas 2 25 galaas 3 25 galaas 4 buu qaadanaya 25 buu qaadanaya. galaas kasta marka 25 xiiso saa ku qaadanaya. Okay. taas halkaas ay ku eg tahay. waaya marka 25 xagee ka timaada 25 waxay ka timid macnaha isbuuc intee jeer baa la shaqeeyaa waan 5 maalin baa isbuuc la shaqeeyaa intee xiisaa la qaataa 5 xiisaa la qaataa isku dhufo markuu ayaa 5 iyo 20 xiiso halkaas ay ka timid. Okay inta halka marka joogno waxaan oran doonaa haddii Ilaahay kuu sumugay nagasti waan soo sii dhihi doonaa. now waxaan leenahay create generate baa leenahay. create new generate baa leenahay. waxaan leenahay start table. Okay labadaas year markay kuu soo baxdaa waa inaad okay tiraahdaa. waxaan tegi doonaa hadda waxay tahay haddii Ilaahay kuu sumugay print waan tegi doonaa. waxaan tegi doonaa print preview waan tegi doonaa. so halkan maxaa markay noogu qoran halkan hadda fiirsaan fiiriyo meeshan. halkan waa table waaye. so class 1 waa kana table-kiisi. class 1 waa kana table-kiisi. meeshan haddaan furno maxay noo soo bixi doonaa? halkan baa ku dhufananaa. so halkan waxaa ku qoran waxay tahay table for each class. class walba iyo xiisadihiisi. tusaale ahaan hadda classka aan tababar ku qaadano oo kale waxa weeyaan waxaan leenahay jadwal gooni ah baan leenahay oo classyada kale aysan nala wadaagin annaga inoo gaara. marka waa class 1 iyo waxa weeyaan table-kiisi waaye. haddaan halkan tago oo aan dhaho next page waa class 2 class 3 iyo class 4 waa sida hadda intu sii weeyaa. waa ku noqonaya meeshan baa ku noqonaya. halkan waxa uu ku qoran table for each teacher macallin kasta iyo classkiisa macnaha intuu xiisadaha dhigo. so macallinkan teacherkan waxa la Shaafici Ali Maxamed maadadu dhigay xiisadaheedii
buhala ku haystaa intuu macnaha xiisad u bixinayo usbuucii halkan waxaa soo galay waxa weeye waa waqtiga nasiinada baa halkaas soo gashay waay waa ka soconayaa halkan baa imaanayaa 10 table for each classroom class kasta waa galaasyadii dhammaantood oo hal jadwal loo wada sameeyey way macnaha hal meel la isugu keena marka kan muxuu yahay waa midka xafiiska inta badan maamulka ku dhagsanayaan way kala soconayaan hadii ilaahay kuu sumagal yahay galaas kasta iyo xiisihiisa intaas ayaan kusoo gudbinayaa intaas ayaan kusoo dhammaynayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi